in xad dheer aynu la leenahay Ethiopia oo kamid ah dalalka lagu arkay kiisaska coronavirus-ka habeenii maalin bana waa laga soo galaa qaadka iyo qudaartuna iyadii ka yimaadaan maxaa talaabo ah lagu xalinaya arintaas ama qaad joojin ha noqoto ama qudaarta ha noqoto u qorshaysan dawladda iyo gudidan garbahaaga taagan talabaad waxa weeye wax kasta way qaaliyoobeen iminka magaalada Hargeysa maanta hadaad gasho saabuntii lagu faraxlanayay waxyaabihii faraa lagu nadiifinayay sooftiyadii wax kasta kor bay u kaceen arintaasna maxaa dawladda uga meeliyay ilaa maciishadiya ta hore waxay nooga meelayaa meelaha ay ka soo galaan baacbishirku Ethiopia ay wajaale ugu xoog weyn tahay iyo magaalooyin kaleba oo wada intaasoo wadada ka soo galaan ilaa iyo halkan ku xirno Soomaaliya xadka uu ka galaayo magaalada ku beeganay wadooyin waa la soo wada galaa kuwa ugu saxmadda badan waxaan dhagnay qolo caafimaadka oo kantaroosha kuwa gobolada kalena gobol walba meelaha ugu saxmad badan ee dhaqaale ahaan furin karo waanu dhageynaa haddii la guddiga qorsheynaysa waa la dhigaya labadaas ay kala sameynaya waxa kale oo ka xoog weyn oo sameynaa inaynu dawladaha jaarka inuu xadka wada dhan ka midowno wasaaradda caafimaadku in arrinta meel ka wada qabtaan xadka talaabadiis halka waa la dhaafin lahay waa xadkeena balaaran xad lawray waa la xiri karayaa ma waa dad isu furan isku mid ah isku xiran wadooyin bad male buura male biyaarina ma kala xidhna waa dhulka Ilaahay furan oo waana iyo saynu isu dhowraa baan ku deenaynaa iyo meelaha ugu badan inaynu geeyno caafimaadka ta kale waxa wali way qaaliyoobeen waa run oo xeelaha ku tala gelin inuu soo baxsaday waxana ummadda waxa leeyahay cunto iyo waxay watay iyo waxay isticmaasho dibadda ka keenta adduunku uu kala xirbeeyaa adduunka dhan baa si kala yareeyaa hadduu cudurkan sii socdo marka waa dhibaato caalam oo dhan ka qabta waxaynu u baahanahay haddii wixii dibadda ka yaraanayaan waxaynu gudaha kaga maarmayno sidaan u abuuri lahayn oo dib isku noqonaa aqoonteeni hore inuu jiray cudurray ma jiray waxa laga barwa jiray waxbaynu haysanaa waxa weeye waxa qaaliyoobaya kamaarankeedii sidaan u yaraan lahayn tani ma aha wax laga aloonaya hebel talaba ka qaad waa reality hortimid oo caalamka hortimid run baan hortimid adduunka kala xirmaya noole wuxuu haystay iyo wuxuu tabcaday iyo wuxuu maskaxda ay soo dhaqmayay intaas la tusay tusaale tusay imika labada dal adduunka ugu xoog weyn Mareykanka China ku soo horeeyay China si qayl la'aan oo dib yarba u maamushay sidii qof qore wax maamulay waa dictator waa meel la ismaqal baa leeyahay dadku waa qof talaabadoodu wax noqotay mid noloshooda badbaadiyay Yurub iyo Mareykan oo ugu lacag iyo aqoon iyo saadar u jecel lahaa dhibaato haysata waxay ku xiran tahay culture-ka say dadku isu maqlaan dhaqanka imika dadka qaarkii Ethiopia la jaarka haddii dawladda maanta saah la yeero 190 istaagan fuliya waa say dadku u kala dhaqanaysiin laakiin dadka egalitarianka dadka iska furfuran siman ee ku adagtay xagga u baydo aynu ka mid nahay waxa loo baahay maanta inuu wax iska bedelaan waa tii aan kulaha waxaynu u baahanahay faqiirkii qanigi yaana kala go'ino hal iscaawiyo waxaynu haysan tashiiran amarka yaala inagu qasbana aan waa caafimaadka in wasaaradda caafimaad ka qaadan say u eeyda kulba halka taayay waxay la tahay taas waa maanta waxaan tahay in laga bixi karayo la soo maxaa la qaban karaa ma waxaan ula ka xog weynaa marka runtii way hortimid sidaynu inagu isu badbaadinaa waa taala waxaan u tashiilanaa wixii aynu weynana wax laga maarmo samaysana aqalka raga laga doonin bad kamid ee u jooga inantaan siinay magacaygu waa Naciima Cabdi Axmed waxaan ka socdaa Horyal TV madaxweynaha ku weydiinay su'aalaha waxa la sheegay maadaama uu soo socdo xanuunka laga sii feejigan yahay ay inagu soo fool leedahay kala xiran ganacsatada Soomaaliland ay tahay kuwa ugu daran maanta ka faa'iideeyay Chinese-kaas hadduu dhaco maxay idinka meel yaala sidoo kale guddida aad magacawdayna ma ku jiraan ganacsatada ama ma la shirteen waxay la tahay waxa la ninka dheer wax loogu tilmaamo ninka weyn ama ka aqoon badan wax looga sheego ganacsatada odayaasha dalka hantidiina iyaga haya dadkana iyaga u jecel badan maadaama Ilaahay wax ka siiyay dadka madaxda dhaqaale u yihiin waxay la tahay maanta inay nagu jecel badan inaga wada hadlayna anigaba si ay dalka waxaan u kaydin lahayn wax hayana dadka wax ka siin lahayn marka niman wax far kale uma filaay ganacsatada maanta waa ragwaayaraga waa wadada waan wada aqaanaa hatta mid weyn kala sooni baan ku qabaa inaan fariir u baahnayn ay dalkooda maanta u gurmanayaan magacaygu waa Maxamed Faarax Coomaade waxaan ka socdaa SBC TV
كلابا أرنك أقول مهم سنة وحوي ونرشيو مادام إنه هيدد أنت بدن نرشوا ذا كحرن تاني وحلسوا الدجان وواحد فيان أيتها waxa ugu muhiimsan waxa weeye su'aashaas oo soo noqotay waa daruuriyaad iyo noloshii gaar ahaan wixii qowtal daruuriga ah ee dadku ay cunayeen hadii ay noqoto raashinkii iyo wixii la halmaala waxyaabaha kale waa laga tagi karaa laakiin noloshu waa daruuriyaadkii waa raashinkii xukuumad ahaan wasaaradii beeraha iyo hay'adii kaydka raashinka qaranka iyo waxyaabahaas hay'adahaas oo kale marka dib loogu noqdo haddii ilaahay naguma keenay xaaladdu ay ka sii yar darto oo badxirankan iyo waxaan adduunka day socodku sii xadidmo maxaa idinka meel yaala daruuriyaadkii ay dadku cuni lahaayeen horta mid aan ku saxo coomaado maxaa idinka meel yaala maanta maxaa inooga meel yaala weey maanta nin wax loo diray jirto horta maanta waxaan taaganahay maxaan sameynaa maxaan qabanaa taladana dee intii nalka fadhida iyo waxa la yaabaa in qaarkii ka soo baxdo tan kula mid gelahay ilaahay mahadi waxaan marayaa muddo dheer kayd raashin oo dharkeena ka soo gaa maanta noogu badan oo la haya wasaaradda hay'adan kaydkuna maanta intii alla dhisay 2 sano ahayd waxay haysaa kayd aanay weligeed qabanin oo in kayd xoog amaanta laakiin marka qarar ahaan la yiraahdo la soo taago waxaas muddo bay ku dhamaanayaan kaydka aanu haynaa marka loo eego seen kaydka u han jiray hay'adaheenu labada hay'ad maanta kayd badan bay hayaan laakiin waxay ku badan tahay markay nabad qabnay ee aan iyaga cid ku soo jeedin ayuu wax badan noqonayday oo waanu ismahdinay ma sha idaacadda ku sideen intaas oo tan baa go'day intaas sector baa soo go'ay qoladan ay maxay leedahay kaydintu intaas oo tan baanu haynaa hadaad marka tagtaan 4 meelood haystaan way buuxaan 4 abahalay dhistaan hangarba erkay maraya mid wala wuxuu ku xiran yahay saqafka waxana uu soo socdaa laakiin waxaas marka loo eego de waxaan marka inagu soo baxay de wax noqonaya wax laakiin waxaan ku sheegayaa adduunka hore tan kale soo martay dagaalada labaad adduunka dhacay bad xiran baa dhacday waad ogaansiyaad barre dawladdiisa diyaaradaha halkan la dhacday dhammaan waa la qaxay xitaa guri lama joogin banaanka la fadhiistay wali lama maqal wax rees waa loo gaajay macluulinta waay wala gaajooday waa run laba la qaday aruur oo dhaqaale qof ilaa u dhasay inagu hantideenu haysanay iyo tiradeena hantideena badan waxaanu haysanaa xoolo nool dadkuna borotiin baa ugu wax u baxsada meel buu ka helayaa maanta si kastoo baad u xiranta qofna hilbi waay maayo lacag aynu dadkeena faqariinta ku gaarsiino waxaan isku silsilo waa waxaan hadii tala keeno kalluunkuna waa naga badan yahay biyo iyo dhul kala digna waan haysanaa waan waayna raaxadii iyo hudheerkii la galay laga yaabo hadii ay adkaato ilaahay ma keenay arkaa iyo kaay dalabtii waa laga yaabo wixii la keenay laakiin haddaynu istashilo wax anu cabsaama qabo badxina hore dhacay dagaal hore dhacay masiibo hore laga soo gudbay hadii baad u xirmaan war ma qabo raaxa la waayay ma in waayna waxaan ku noolaano hore waan u jaabin laakiin waxa ku xiran tahay fikraddeena soo soo maqlo dad markay tashaan miisay wax walba qaban kara marka maanta ma garin maxaa dawladda uga maleeyay waxa dawladda waxa maleeyay waxa ku maleeyay warsan u badbaadaan oo taalade magacaygu waa Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen waxaan ka socdaa Universal TV su'aashan ku weydiinay madaxweyne waxay tahay haddii xanuunkaasi maado ilaahay bay nooma keenay waxa ugu horeeya ee ugu yar ee dadku u baahan yihiin waa safe mask amaba waxa afka dahaarka markii xanuunkaasi soo baxay si weyn baa looga daadgureeyay deegaanada Soomaalida gaar ahaan Soomaaliland inta ogaalkaygaana magaalada Hargeysa uu aad buu ugu yiri dhinacii qiimaha 5 jeer ayuu libilaam maalka safe maskaas wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda arintaasi maxaa uga qorsheysan oo ah arinta ugu horeyso hadduu yimaado alla ma keenay dhibaatada ugu horeysa ay timaado ay waxa ugu ugu horeysa talaabada la qaadi ay tahay waxa ka meel yaala su'aasha hor uu ninka hore weydiista war maxaa meel ganay inoo yaala taala mugti wax rag gala gacan ku jiraad maxaa ka meel yaala markii u horeysay ee waxaan dhacay wasiirka caafimaadku waa kan maalintii aan reer ka furaayay ayaan isu diin maxaan u haynaa wax yar bay noqotay hadii baa wax lagu yimaada maalintaasaan yiri war maxaan iibsan karaa bal maaskii hala doon in baarkii markii laga laayay moogtay isagoo 5 jeer qiimo laabmay qiimihiisa ilaa maanta dalkii u dambeeyay
أي وزارة عافات كم قلت وأي واحد مثلا العكس هذا دل كوهر كرا العقل وبد بعد العقل ما راح وحنا عيسى قعصة إننا وحنا وحبلون كرا قفكو يبسو برهرت إلا هرمد إيه ترى كي يقوى وين أبوك قاعد لكن وانا كم قرنا ما هيمك الدولة عالم كم إحنا السيما نقول إيش كسب بدرين حوك سيمبا كل وقت عشرين أيام نقول إيش يا الله تاجي مركا هدي إنه أي يا عاقبة كويرين لبضوا كم قرنا إلا ما أنتها وحي الرواله كان oo public qofleen laakiin imika waxaan haynaa waxay dhaqaatiirta iyo dadka caafimaadka shaqeeya waa la hayaa in ku filan iyo ku hawlgali karaan laakiin publicly hada sabab soo hebel ku siibsan active weelkeeli qof laba soo in awala assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad ayaan ugu horeyn idin ka mahadnaqaynaa inaad fursad cayn kana dabcan nasiisaan magacaygu waa Betri Koosar Maxamuud telefishinka sahan ayaan ka socdaa su-aashaydu mudana waxay tahay waxaynu si weyn ula wada soconaa in dhawaan cisbitaalka weyn ee Hargeysa ay dadii ugu dhinteen oxygen laan daba su-aasha meesha taala waxay tahay maadaama cisbitaalkii sidaa yahay sidee baynu ugu hortagi karnaa xanuun duni idinka idkaaniyaad badan aad uga qaydisay waa jirtaa inay marka xumaatay cisbitaalka oxygentii oo dad ku dhintay inaan ku dhintay maalintaas la diray mashiinkii kan jooga lagu xoojin lahaa wala bilood imaka labada bilood processkii mashiinka lagu soo iibin lahaa ku jira waayo waxa balay nooca ay qoladan hore soo haysay aanu dalbanay China lagu sameeyaa marka hore deetana waxa la amar uma lagu sameeyaa inaan marka dambe bilowna assemblygiisa ayaa lagu jira ma markii ugu dambeysay way ka hore waxaan idin keen karaa 15 cisho ka bacdi meel ka dhow waanu diidnay waayo mashiin baan doonaynaa weyn oo dhaliyo oo ku filaada dadka inta leeg mashiin yar oo kolba ha laga buuxiyo maana doonay oo joogto socota waanu ka hawlgaleynaa maantana maxay nooga meeyaa dhakhtarkeena aba ay oxygen ku yar tahay iyo saataay tahay horantay baalkana hal dawada waa lagu caawiyaa oxygen qofka la gelinayo marka sabab istaagaane dawo lagu bogsiya ma laha horta badaro ka horta baynu baahnay ka horta gana cid qureen dhagaha dadka haysatay ee iyo jeer hadlaysa adaa kowka dadka waxaad aad uga waanaysaa waxyaalo baalka keena ilaa hadduu soo fakado dawo ma lahe xitaa boqor dawlad maxay ninka u dawo weyd qofku maxaa la qabtaa imika qofka marka lagu qabto isolate garee gooni u xid cid kale uu gaari hadduu xaal ku cuslaadana si ku rid oxygen taas loo soo iibiyo oo la aastay kii eeriska lagu deeyay uu ku bogsan waay tii karaacada lagu deeyay uu ku bogsan lahay markaas sidayna inaanu taagdarro warisognahay soo ma ogid sanadkii intaan u diro India iyo Turkiga iyo dhakhaatiir lacag naga baxda in cisbitaalka adduunka u wanaagsan noo dhisi lahayd ee dadku gaar u bixiya laakiin aan aqliga war lacagta naga baxaysa inuu sugeeyno cisbitaalka u dhisan dawladdu maxay qabataa dawladda lacag cisbitaalka u dhisan ma siisaa baa ka horeysa xisaabi waxa dawladdu ay dawladdu dhibto shacabka u dhibanaa cashuura aroob waxnu sanad walba baashka miisaaniyada keena waliba iyadoo transparent imkana waa la xisaabin karaa war waxaanu dhibnaa horta waa maxay dawladda loo dhiibaa war maxay dawladda inuu bixisaa inta qoladina jiraadka adigu bari yar ku jira hadal aad tuurtay fadban aliyar heer isku direen inuu ciidan iyo nabadgelyo u daraa ku baxda cisbitaal bay dhis lahayd maanta meel wax kale ku daray adigu waa caafimaadka waa ma santiin wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh